بسم الله الرحمن الرحيم waxaad ku soo dhawaanaysaan barnaamijka taxanaha caafimaadka magacaygu waxa weeyaan Dr. Abdullaahi Abduqaadir Cali waxaan ku hadli doonaa cudurrada ugu saameynta badan ama bulshadeena saameeya qaasatan kuwa aysan ka warqabin ama hadii ay dhacdo inay ka warqabaanna ay si qaldan daawooyinkooda u isticmaalaan ayaan maanta isku dayi doonaa wixii aan ka gaan inaan ka sheegno qaasatan anigoo xoog saareyno cudurka dhawaanahan ee Soomaaliyeed ku soo badanaya oo haddana aysan ka warqabin oo loo yaqaan hepatitis hadii ay dhacdana inay ka warqabaan oo qofkii uusan ogeyn sidoo ugu hortagi lahaa ama hadii uu haleelo sidoo ula tacaali lahaa awalan intaan taas u sii gudi karin ka hor waxaa jirto in kasto dhimashada Ilaahay uu hayo dhimashada ilaa iyo 3 qaybood loo kala qaadaa marka CDC ama Center for Disease Control and Prevention mar waxa la leeyahay waa shanjirta ciyaalka 5 sano wixii ka yar maxaa sababa inay dhintaan ama oo ka qayb qaata dhimashadoodii ugu caansan mar waxaynu fiirinaynaa hooyada uurka leh ayada iyo cunugeeda maxaa keenaya inay ayada ay dhimato marna waxay leenahay dadka 20 ka weyn ama 20 jirida ka weyn ilaa iyo 50 ka middle aged ka ama dadka da'da ah maxaa u keenaya inay dhintaan ciyaalka 5 jir hadaan ku bilowno waxa u keena badanaa dhimashada waxa loo yaqaano pneumonia oo ay dhacdana anaga agteena ay tahay wax iska sahlan وانا حقيقة وانا wax sahlan hadii sida loogu talagalay aan loo manage gareen ama xilligii ugu habooneed qofkii xarunta inuu yimaado hadii san uu imaan waxay keenaysaa qofkii inuu dhinto waxyaabaha ciyaalka 5 sano ka yar oo u soo dedejinaya inay dhintaan waxa kamid ah shubanka oo laga yaabo hooyada cunugeeda markuu shubmo inay ilaa 24 saac ka badan ama 48 saacadood ka badan guriga isaga haysato ayadoo cunugii uu fuuq baxay waxyaabaha keenaya ciyaalka 5 sano ka yar inay si degdeg ah ku dhintaan waxa kamid ah malaria oo aan ayadana maanta raba inaan ka hadlo laakiin si deeply oo hoose aan u gali doonin maadaama mawduuceena guud uu yahay hepatitis-ka okay hadii aan u gudubno dhimashada guud ee da'da yarta ah oo ciyaalka 20 hadaan dhahno kale oo dadka qaan gaaray ilaa iyo 50 inta u dhaxayso kale maxaa u keenaya dhimashada ayada waxyaabaha u keenay waxa kamid ah cudurrada wadnaha ku dhaco oo ay xaqiiqatan sanadihii ugu dambeeyay Soomaaliya ay ku soo badanayso hore aan loo arki jirin oo wax caan ah aysan ahayn ayadoo aan aaminsanahay inay keenayso horumarka dalka ka socdo oo ay kamid tahay in qofkii asigoo cunto fresh heli kara inuu soo qaato cunto gasaacadaysan waxyaabaha keenay kamid tahay oo kawsiska ugu badan oo keenay kamid tahay waxa dhacay qofka hadii uu cuntadaas oo isticmaalo oo loo yaqaan manufactured foodska oo cuntada gasaacadaysan wax badan ay ku sababaysaa qofka hadii waxyaabahan oo faantado kale hadii aadka aan u isticmaalno kale waxa la dhahaa waxa ku badan sokorta qofkii sokor ay u keenaysaa marka mar walba caafimaad ahaan waxaan ku talinaynaa qofka inuu ka fogaado cuntooyinka gasaacadaysan ee warshadaysan asigoo uu heli kara in cunto diyaarsan uu heli karo waa nasiib daro inuu qaato cunto gasaacadaysan inkastoo badankeena bulshadeena ay u arkaan reer magaalnimo waxyaabaha ugu badan oo qofka dhimashada u keenaya adduunyada markii sanadihii ugu dambeeyay oo la register galiyay waxa kamid ah kansariska qaasatan ayadana Soomaaliya waxa ku soo badanaya kansariska oo ay koow ka tahay hablaha Soomaaliyeed oo lagu arkay breast canceris hooyooyinkii hore iyo abayaalka waa weydii kartiin wax hore u jiray ama caan ah oo ma ahayn laakiin hadda waxaad arkaysaa isbitaaladii inay hooyadii kula imaanayso mid magaalo joogto iyo mid tuulo joogtaba kansariskaas oo ay ayadana ay kor u kacayaan kamid tahay waxyaabaha oo qofka u keenayo inuu dhinta inta life interkiisu nool yahay inkastoo hore aan u sheegnay in dhimashada Ilaahay uu hayo haddana waxyaabo la register galay waxa kamid ah diabetes laftigiisa waa loo dhintaa waxa loo baahan yahay talooyinka caafimaadka in loo dhaganuglaado oo waxyaabaha lagu talinayo lagu dhaqmo hadii aan tusaale yar aan soo qaadan waxa kamid ah cudurka Soomaaliyeed aad ay u yaqaanaan malaria markaan dhahno malaria adduunyada malaayiin qofood ay ku dishaa I think 25 April in loo xuso malaria day waxa loo xusaayo waxa waaye in dadkii
la wacyigeliyo in mar walba dhig u lahaadaan malaria qof aanan aqoon oo caruur xataa wuu yaqaanaa laakiin dhibaatada waxay ka taagan tahay sidee baa looga hortagaa haddii aad isku aragtana calaamadaheeda maxaa kula gudboon in aad samayso saad ogtihiin malaria qofka inay malaria hayo uu dhaho wax badan ka horeeyo waxaad arkaysaa qofka calaamadihiisa inuu xifdisan yahay ama hooyadiisa ay ku dhacday ama walaalkiisa uu ku dhacay uu xifdisan yahay calaamadihii ay kamid tahay qofka inuu madax xanuun isku arko oo isku arko waxa loo yaqaano jarees isku arko inuu isku arko lafa xanuun isku arko inuu matag isku arko laba isku arko dhaxantii inuu isku arko wuxuu isku programinayaa already malaria qaba uu leeyahay waxa laga yaabaa inuu tago farmashigi oo cirbadii isduro taas qalad aad u weyn waaye saameynteedana ay Soomaaliya idil u taalo qofka malaria horta in la helo saddex waxyaabo loo baahan yahay ala dhaha markii malaria aynu ka hadlayno midda koowaad waxa weeyaan in la helo kaneecada wiliba nooca female-ka ama maxay ahaday oo female-ka female anopheles waa in la helaa waxa kale oo midda labaad loo baahan yahay in la helo ay tahay qof bukaan oo malaria qaba in meeshaasi laga helo waaye malaria oo processkeeda u dhaco midda saddexaad ee loo baahan yahay waxa bay qofkii kale ay dhuugi ay ku shuba lahayd ilaan waxa qaybinaya malaria waa kaneecadii inay qof jiran oo malaria positive ay dhiigi ka soo dhuuqdo oo ay qofkii kale ku shubto waay marka saddexdaas impossibility-geeda la helo waxa laga heli karaa meelaha endemic oo areas-ka ay ku tahay ama caanka ay ku tahay Soomaaliya haddaan u soo laabano dawladda federaalka oo kale waxa register galaysan ilaa iyo districts-ka loo yaqaano 5G oo ay kamid tahay Jowhar iyo Jamaame iyo Jilib ay kamid tahay meelaha ay maraan wabiyada waxa dhacaysa malaria inkastoo hadda ay dadkii aware badan ay ku yihiin in hooyo uur leh ay isku aragto calaamadaheedii ayadoo aanan hubsanin ay tagto farmashigi ay ilbidin isku dirto taas waxa laga yaabaa inay ku weyso cunugeedii sida aad ka warqabtaan ama dadka qaar ay og yihiin waa ay dhacda arintaasi waan aragnaa taas waxa lagu hortagi karaa in calaamadaha qofkaas markaad isku aragto inta soo baxdo xarun caafimaad aad tagto not pharmacy waa xarun caafimaad inaad tagto laga baaro markii laga baarana wixii lagu tali aad isticmaasho yaa heli kara malaria laftigeeda ama yay saameysaa oo halis ugu jiro waxa halis ugu jiro dadka saan sheegnaba endemic areas-ka ama meelaha oo caanka ay ku tahay tusaale ahaan haddii aan dhahno waxaan ka soo safray gobolka Banaadir waxaan u safray Jowhar waxaan risk ugu jiraa malaria maadaama meel caan ay ku tahay Jowhar kaneecada ay aad u tahay marka waxa la sameeyaa xataa adduunyada qofka endemic areas oo meel place oo ay caan ku tahay markuu malaria u socdo markuu galaayana waxa laga qaadaa test laga qaadaa markuu ka soo baxayana oo uu ku soo laabto districtigiisana waxa laga qaadaa test kale marka waxa halis ugu jira qof walba oo tago meel ay malaria caan ay ku tahay qof walba oo tago ayaa halis ugu jiro waxa kale oo isxusuusin mudan inkastoo inaan ku fogaado malaria aan rabin laakiin ay tahay waxyaabaha ugu badan oo ay dadkeena oo fahan la'aanta ay ka haysato ma ku dhacdaa xayawaanada malaria saan ognahay waxa sababto ilaa iyo 4 nooc ay waagi hore ahaan jirtay laakiin hadda waa 5 nooc ala dhahaa sababto plasmodium waxa dhici karta in nooc kamid sida loo yaqaano abiska oo xayawaanada loo yaqaano oo ay wadaagaan iyo abiska nooc daanyarada kamid la dhahaa ay wadaagaan iyo bini'aadinka noocyo ku kala dhaco inay seeb noqoto waa laga yaabaa laakiin ma dhacayso qof bini'aadin inta kana aqaniinto oo qof xawayaan intuu inay qaniinto ay u gudbiso marnaba ma dhacayso laakiin waxaan ogaataan in xawayaanada laftigooda waa malaria ay ku dhacdo taasna waxyaabaha loo baahan in la ogaado kamid tahay sidee baa loo daaweeyaa malaria waxaa loo daaweeyaa uga caasan quinine ayaa la daaweeyaa oo first line haddii qofka wax ka tarbiyeysay quinine 600 mg oo soconayso haddii wax ka tarbiyeysay second line ka loo gudbaa oo AL artemether iyo lumefantrine waxa kale oo xusid madan sidee baan ugu hortagnaa waxyaabo laga hortagi karo waxa kamid qofka inuu isticmaalo marakaneecada oo isticmaala kooka oo mar walbana aware ka ahaado
ayaa qasab ah waxyaabo lagu hortag markaan dhahayno oo soo galay waxa kamid ah hooyada laftigeeda soo galayso in second trimester ama third trimester ku jirto 3 bilood dhexe iyo 3 bilood dambe inay qaato kaniiniga loo yaqaan 3 xabo loo cabo oo subdexinka barantiinka inay qaadato taasi waxay ahayd iska general ama waxyaabaha dadkeeni ay u baahan yihiin inay laga wacyi geliyo ama inay ogaadaan qaladaadka kale oo dhacayo markii malaria aynu ka hadlayna waxay tahay waxaad arkaysaa qofka haday sheegnay markuu calaamadii isku arko asigoo aanan hubin nasiib darada jirto waxa kamid asigoo aanan hubin intuu imaado wuxuu isku durayaa cirbidi waa laga horeeyaa cirbidi qofka waxa ka horeyso inuu maxay qaato tab uu qaato ama tablet kaniini caadi uu qaato ka horeyso dhamaan consultationadaas waxa lagu sameeyaa xarumaha caafimaadka wixii xarunta caafimaad laga taliyo inaad qaado laakiin marnaba bulshadeena Soomaaliyeed aysan dhicin in qofkii asigii oo ama qof saaxiibkiisa ah ama dariskiisa ah waxa nagu caan ah in qof uu yiraahdo adaabadii hadda ka hor ku caafimaad jirtay si uu ka caajisay inuu tago maxaa lahaa health center-ka ama facility inuu tago qofkan isku daabo ma tihiin isku history ma ahideen marka taasna waxa loo baahan yahay in laga fogaado oo qofkii uu xaruntii caafimaadka yimaado aan loo baahan yahay okay hadii aan u soo daadegno cudurka maanta aan ku qoranahay ee loo yaqaan hepatitis B oo ay dadkeena Soomaaliyeed iyo waagi hore kama warqabin ay hadda aad u soo ogaanayaan oo ay kamid tahay waxyaabaha cudurada soo badanayo sanadihii dambe oo sida aadka u soo badanayo waliba hepatitis markaan leenahay ereyga hadaan u laabano macnihiisa ahaan waa maxay ahayd infection ama caabuq ku dhaco beerka ku dhacayo beerka wuxuu ka mid yahay the main organism xubnaha ugu waaweyn ee jirka bini'aadamka oo u qabtaan waxyaabaha basic life-ka ah hadii uu qofka oo halis u ka galana sida kaliyaha kale ama wadnaha ama maskaxda ay wax kaga dhacaana uu qofkii noloshiisa oo dhimashadii u sii degdegayso ama uu ku sigana inuu dhinto weeyaan marka waxaana sababa waxa loo yaqaan virus sababa oo hadhowaan gadaalka arki doonaa daawooyinka loo qaato waxa loo yaqaan antiretroviral drugska antiviral drugska virus marka leenahay bini'aadamka waxa cudur u sababo bacteria u sababto oo qalajiyihii loo siiyo oo qofka antibiotic haduu qaato way ku filan tahay waxyaabaha qofka bini'aadamka cudurka u sababo waxa kale oo kamid ah fungal kamid ah antifungal hadii la siiyo way u fududahay laakiin viruska aad u dhib badan yahay viral meel kasto lagu arko waxa waaye dadka health centerska ama health professionalska waxa way alert gooniya u shidma viral cudurada caanka ah oo sababo ama viruska uu sababo waxa kamid ah AIDS-ka kamid ah ayaa kamid ah oo aad garan kartaan halista uu leeyahay qofka inuu u dejinayo inuu dhinto hadii uusan qaadan wax daawo ah cudurka maanta aynu ka hadlayno hepatitis-ka hatta wuxuu ka diran yahay HIV-ga oo waxa la dhahaa qofka HIV-ga hadii uu qaato daawada sida loogu talagalay uu qaato waxa laga yaabaa cimrigiisa life span-ka ah inuu u dheeraado oo ilaa iyo 10 to 15 years dad la nool oo daawada oo qaatay caabiya jiraan laakiin cudurkan hepatitis-ka waa ka faafid badan yahay HIV-ga waxaana keenaya aqoon darada dadka ay leeyihiin hase ahaatee waana xataa uu ka halis badan yahay maadaama uu si degdeg ah qofkii noloshiisa uu halis u keenayo hadii sida loogu talagalay iyo wadadii loogu talagalay uusan u marin viruska waa u dhib badan yahay waxyaabaha mar walba sababayana waxa kamid ah oo qofkii dib ay tahay in la soo saaro wax vaccine aan loo soo saaro ama hadii ay noqoto in la soo saaro waqti ay u qaadato waxa kamid ah viruska inuu aad u dhib badan yahay markii loo fiiriyo bacteria iyo fungalka okay muxuu nagu sababayaa qofkan hepatitis-ka markaan leenahay markii uu jirkiisa viruskaas uu ku habsado muxuu u sababayaa waxa loo yaqaan cirrhosis uu keenaya beerkiisa ama inuu cirrhosis uu keenaya xubinta loo yaqaan liver-ka taas oo hadhow keeni doonto qofka liver failure inuu ku dhaco ama inuu beerkii uu fadhiisto oo shaqadii idil joojiyo qofka waxyaabaha muhiimka ah oo aan madasha ku soo qaadanin waxa kamid ah ilaa iyo goormu ka soo muuqan karo cudurka qof normal ah oo caafimaad qabay health person ah ayaa waxa qaniinay kaneeco mise irbid ayaa durtay mise qof oo affected ah oo saameysnaa oo wax la wadaagay oo micnaha cudurkii u gudbay transmission ama ka dhacay
transmissionkaas markuu dhaco oo cudurkii qofku ku dhaco soo muuqadkiisa way kala duwan yihiin cudurada qof 3 beri kaga soo muuqata cudurada qaar qof maxay ahaday ilaa 7 days ku qaadanaysa qof ilaa iyo waxay ku qaadanaysaa 10 days cudurka ha weynaado ama ha yaraado intuu soo muujinayo qofka bini'aadamka jirkiisa way ku kala duwan tahay cudurkan waxyaabaha dadka ay ugu baraarugsaneen waxa kamid ah hepatitis-ka qofka markuu ku dhaco waxa laga yaabaa in 1 to 6 months oo jirkiisa oo ku jiro hepatitis B-ga qaasatan aan ka hadlaynaa waxaa la dagaalamayo qofka immuunkiisa la dagaalamayo hase ahaatee waxaa laga yaabaa inuu jirkiisii oo in muddo ah uusan qofkii wax dhibaato ah uusan oo la kulmin ama dhibaato uusan gaarsiinin oo ah ilaa heer uu tago isbitaalka uu tago waxa la yiraahdaa qofka horta bukaanka sidiisa goor isbitaalka yimaada isbitaalka bukaanka wuxuu yimaadaa markii dhibaato uu la joogi way ama sun isku ogeenin uu develop gareeyo ama uu isku arko waxay ku dhalanaysaa qofka isbitaal inuu tago inkastoo Soomaalideena dhaqamada la yaab kale ay leeyihiin ay kamid tahay in qofka sabtidii ama axadii oo isku programay inuu isbitaalka tago waxa laga yaabaa maalin Talaado ama Isniin inuu xanuunsado wuxuu leeyahay sabtidaan tagaya waa sababta ay mar walba sabtidii axadii isbitaalada ay aad u buuxaan qofka waxa loo baahan yahay waxa la lahaa the first oo adiga aad ogaato cudurka ku hayo xilliga ugu horeeyo adiga daawadaada ay soo degdegayso marka cudurka qofku isku arko waxa loo baahan sida u dhaqsiyaha badan hadii aysan markaas health centerka ama caafimaad isbitaalka private ha ahaado public ha ahaado uusan xirneenba inuu taga loo baahan yahay habeen xataa haduu helayo laakiin uusan dhihin waxaan tagayaa maalin heblaay ama next first week oo first day oo week kale aan tagayaa inuusan dhihin taas waxaad sameynaysaa ama aad caawinaysaa cudurkii markaas jirkaadii ay ku jiray ayaad caabinaysaa ama aad siinaysaa fursad fiican oo qofkii oo hadhowna ay dib kugu noqon doonto daawadaadii in xilli hore la gaaro cudurka qofka markuu ku dhaco waxa la dhahaa ma ka daawowi karaa haduu Ilaahay daawo ugu daro oo loo adeegsano waxa loo yaqaan immunoglobulin la siiyo oo antiviral drugs loogu daro laakiin CDC ama WHO waxyaabaha ay recommend gareeyaan waxa kamid ah qofka hadii uu ku dhasho ka waran hepatitis-ka waxa la dhahaa hadii uu ku dhasho hepatitis-ka aad ay u adag tahay inuu ka tago inta cases oo la boorgoreeyna ilaa 93.78 waxa la dhahaa dadkii ku dhashay hepatitis-ka way u dhinteen ma aanay wax marna meel kama aado ama waxa laga yaabaa daawo immuunkooda ama difaacooda adkeena in la siiyo oo qofkii in muddo ah uu iskala noolaado laakiin markuu ku dhasho qofka waa ay dhib badan tahay laakiin hadii hooyada hepatitis aysan qabin oo hepatitis B-ga aysan qabin oo cunuga say u gudbiso way adag tahay laakiin mar haday qabto cunuga ay u gudbiso cunugii waxa la leeyahay waa uu la noolaanaya noloshiisa inta ka dhiman laakiin ma hadda jirta waxay tahay hooyada hadii hepatitis B aysan qabin oo san cunugaasna markii uu dhalanayay maqaskii ama wixii loo isticmaalayay si fiican sterilized aysan u ahayn oo san wax meesha ka soo gaarin cunugaas asigana badbaado fiican uu ku jira oo cudurkan hepatitis B-ga caan kuma ahan ciyaalka 5 sano ka yar waxyaabaha oo aan rabno inaan maxay ahaday aan taabano oo waxa kamid ah qofka sidoo ku ogaanaya horta inuu hepatitis uu qabo adiga ahaantaada sidoo u ogaanaysa qofka waxa uu isku arkaya waxa loo yaqaano qandho isku arkaya qandho badan isku arkaya qofka wuxuu kale isku arkaya waxa loo yaqaan fatigue kor xanuun isku arkaya ama daal fara badan isku arkaya wuxuu kale isku arkaya stomach trouble fara badan isku arkaya oo ay kamid tahay inuu qofkii laba dareemo inuu matag dareemo inuu qofkii xataa waayo dhadhankii uu waayo wuxuu kale isku arkaya calool xanuun isku arkaya oo caloosha dhan ah oo maxay ahaday qaasatan liverka agagaarkiisa ama beerka dhinaciisa wuxuu kale isku arkaya kala goosyada dhamaan calaamadahaas aan soo sheegnay in qofkii qandhado ama kor xanuun uu dareemo ama inuu tabcaan yahay dareemo ama dhadhankii uu ka dhimo cudurro badan ay ka sameeyeen waxyaabahaas waxa keenaya qofka maxay ahaday waxa keenaya cudurka markaas oo jirkiisa weerarka ku haya keenayo ama soo invasion kareey laakiin midka oo marka calaamada ugu dambeeyso waxay tahay jaundice oo qofka hadii uu noqdo oo aad dhehayso waxa isaga shakiyay hepatitis isaga shakiyay aad dhehayso waxa qofka markuu jaundice noqdo oo qofkii niisoo kale waxyaabaha lagu arkayo waxa kamid ah inay jaalo noqoto
indhaha qaybtooda cad oo kale waxaa soo noqonayo jaalo soo noqonayso. waxaa kaloo laga yaabaa inay kaadidiisa isku rogto kafeey ama orange kale noqotaa laga yaabaa orange laga yaabaa. marka haddii calaamadaas dhan ku raaceen maalmihii ugu dambeeyay aad caajisaneed oo calool xanuun waxa aad dareemaysay qandhadii ku raacday oo ay ku soo raacdo inay indhahaadii aad ka aragto inay jaalo kale yihiin ama kaadidaadii ay brown tahay ama orange kale ay tahay, waxaad ka shakinaysaa inaad qabto hepatitis ka shakinaysaa. okay, waxaan u soo degaynaa qodob aad u muhiim ah. qodobkaas oo ah sidoo sheegani ku sameeyaa spreading uu ku sameeyaa ama how it can be a risk, sidoo uu halis ku yahay. waxaa horta isku gudbaya viruska waaye. viruskii dhibaatadii qofkan ku hayay mid la mid ah ayuu ku haynayaa mise ka badan oo taranka jirkiisa uu ku sameynayo. wuxuuna ku imaadaa qofka oo virus qaba oo qof kale contact la sameeyo ama isdhexgal la sameeyo. isdhexgalka muxuu yahay? isdhexgalka waa badan yahay. waxaa ka mid ah in galmo qof hepatitis qaba aad la samaysid ama narag ha noqdo. oo waxaa jirto galmada markaan dhahayno hepatitis-ka rag iyo dumar wuu ku dhacaa galmo sameeyay. wuxuu riskigoodu ka badan yahay markii laba rag ay isku tagaan oo maxay ahaday uu ka badan yahay riskigooda. ciqaab ilaahay wato waaye saan ognahay, diinteena ma ogola. waxyaabaha riskiga oo xataa faafitaankiisa oo badan yahay HIV-ga markii la dhahayo xataa laftigeeda culimada caafimaadka waxay dhahaan dadka geeyga ah ama ragga u tago wuu ku badan yahay riskigooda. kuwa qaaraaba dhaha uu ku yimaado markii ugu horeysay oo viruska la arkay. hase ahaatee muhiimadda waxay tahay in qofka galmo uu sameeyo qof infected ah ama oo positive oo hepatitis B ah oo qaba inuu u galmoodo laga qaadaa oo ah unprotected sex oo sexy ah unprotected sex oo sexy aanan maxay ahayd protection lahayn ama tusaale ahaan oo kale oo qofkii condom uusan wadan. okay, meelaha oo laga qaadi karo ama qofka contact marka la sameeyay sidoo kale waxaa kamid ah saliibaha ama afkiisa dheecaanka ka imaanaya kamid ah. taas waxay ku imaanaysaa qof oo hepatitis qabo in aad dhunkatay ka imaanaysaa. markaan leenahay HIV-ga faafitaankiisa waxaa ka daran hepatitis ka daran. markaan leenahay waxa HIV-ga in la dhunkado kale ma lagu qalqaado unless haddii qofkii afkiisa jeexan yahay dhiig ka socdo ama qofkaan afkiisa dhiig ka socda istaabtaan ma sheegin. laakiin kanoo kale shumiska ama waxa loo yaqaan long kissing oo kale waa lagu kala qaadaa. waxaa kaloo lagu kala qaadaa in siminka ama qofka dheecaanka ninka ragga ah oo ka soo baxayo oo qofkii dumarka ahaa oo gaaro afkeeda sidaas oo kale waa lagu kala qaadaa. ama bilcagsi aan dhahno vaginal secretionkii ama gabadha xubinteeda taranka dheecaanka ka imaanayo oo gaaro maxay ahayd ninka ragga meeshay doonaha ka gaartay aan dhahno kale afka aan dhahno ama aan dhahno meel gacantiisa kamid ah jeexneed oo ay ka taabatay secretionkii gabadhii vaginal secretionkii. marka waxaan leenahay waxyaabaha ugu halista badan oo keeni karo ama uu ku gudbi karo viruska ayay kamid tahay. wuxuu kaloo ku gudbi karaa viruska oo hepatitis-ka sababayo in la wadaago sharing needles oo aan wadaagno cirbadaha aan wadaagno kale ay u badan yihiin dadka daroogada isticmaalo oo ay dhacdo markay daroogada isticmaalayaan 5 qofood ama 4 qofood inay dadkii u fadhiyaan oo qod ay dhacayso kan inuu cirbad isku diro u dhiibo qofkii kale oo qofkii kalena isku diro ay keenaysa. waxay kaloo sharing needles ay ku dhici kartaa. sharing needles waxay kaloo ku dhici kartaa mas'uuliyad darro oo uu sameeyo qofka oo markaasi daawada bixinayo oo inta daawo qof uu ku diro saliingadii asoo dhibeelaya kale oo asoo u jeedin dad qaar oo Ilaahay ka cabsanaa jiro inta hoos la galo uu soo jiido qof kale uu sii aydan waxyaabo riskiga badan ay ka mid tahay. ayadoo riskigeedii uu sii badan yahay markii qof hepatitis qabo oo lagu diro ama beerka ka jira lagu diro oo qof kale lagu diro waxay keenaysaa inuu u gudbo. waxaan soo sheegnay galmada koow iyo cirbidaha la isla wadaago. waxaa kaloo keenaya waxa loo yaqaano accidental oo needle stiga keenayso in qofkii tii hore waxay ahayd waa loo bareeray oo cirbadii ogaal ah loogu duray. tan waxay noqonaysaa in asigoo aanan ka warqabin oo cirbadii uu duro kale ay durto. taas waxaa la dhahaa waxaa halis badan ugu jiro dadka oo ka shaqeeya goobaha caafimaadka ah. waa waxyaabaha loo dhaho waa inay qaadataan
aad qaadataan talaalka hepatitis-ka aad qaadataan dadka caafimaadka ka shaqeeya waa dadka ugu horeeya oo halista ugu jiro maadaama dhiigii laga sheekeynayo gacantii ama lugtii jeexmaysay oo cirbadihii iyo maqaskii iyo maxay sakiimadii dhan isbitaaladii ay yaalaan mar walba halis ay ugu jiraan inay develop gareeyaan dadka halista ugu jiro ama waxyaabaha uu ku gudbo waxaa ka mid ah sahday soo sheegnaba mother to child waxaa ka mid ah hooyada inay u gudbi karto cunugeeda ayaa ka mid ah hooyada inay u gudbi karto cunugeeda okay sidoo buu caan u yahay hepatitis-kan ama da ahaan aniga muxuu caan oo nagu yahay da'da saan haday sheegnay waa ilaahay xamdigiisa 5 jir wixii ka yar caan kuma aha cudurkani laakiin dadka 20ka waxay ka bilowday ilaa iyo 50ga ama 49ka ala dhahaa waxay ku jiraan are most likely oo together inay helaan ama ay develop gareeyaan ama qofkii uu mar walba risk ugu jira inuu cudurkaasi uu isku arko sideeba markii xarunta caafimaadka loo yimaado maxaa loo sameeyaa dadka waxyaabaha aan rabay inaan ku wacyigeliyo ama u sheego waxaa ka mid ah bulshadeena waxaa arkaysaa qofku dhahayo isbuuci hore waxaa laga qaaday dhiigag waxaa dhacaysa qofkii inuu jirto oo isbuuc laga qaado dhiigag laga qaado qoostii wax laga qaado oo haddana 2 isbuuc kadib oo kale uu xanuunsaday la dhaho dhiigag iska soo baar uu dhaho qofkii isbuuci hore aan dhiigag iska qaaday ma iska qaaday hadda dan badan ku jirto qofka in laga qaado dhiigga laga qaado waxa la ogaanayaa cudurka markaas uu ka shakisan yahay ma ahan ka badan xataa waxa dhacayso in la ogaado waxyaabaha faa'iidada leh ama qofka oo health professional ka oo hadhow qofka bukaanka uu ogaanayo waxa kamid ah saan ognahay qofka liverka markuu ka xanuunsado oo hepatitis-ka virus-kan uu ku dhaco waxa la dhahaa dadka qaar complicationada ka dhasho waxa kamid ah liver cancer ama cancer inuu kaga dhaco beerka laftigiisii oo kaga dhaco marka waxyaabaha lagu ogaanayo waxa kamid ah in beerkii laftigiisa hadhow la dhaho qofkii dhiigig sidoo uu ogaa la dhaho ultrasound hadan soo saar bax hadii wax development oo cancerous amal oo suspect uu jira la dhaha marka in mar walba qofka xarunta caafimaadka imaanayo uusan diidin waxa loo yaqaano hadii baaritaano oo marayo uu u hogaansamo awaamirada qofka markaas keeskiisa gacanta ku haya ama qofka dhakhtarka ah uusan dhihin muqaalafo uusan sameyn qaladaadka dhaco xarumaha caafimaadka markii la joogo waxa kamid ah oo si daily hadii aanan dhihin oo weekly u dhaco waxa kamid ah in dadkii qaar aad arkaysaa oo dhiigiisa aad u hooseeyo waxa la leeyahay dhiigga lagu shubo ama familkeeda u waxa maxay aad ku shubaan si qofkii uu ku aamino maadaama isku dhiiga tihiin ama lagaaga soo saar maxaa la dhahaa filinjeerka dad qaar ma ogolo wuu ka tagayaa qofka dumar ayadoo dhasho kale waxay familkeeda qasbay waxa la leeyahay dhiig lagu shubayo waa la wadaaya waxa dhacaysa hadhow qofka in lagu soo celiyo asigoo naftii maxay la tacaalayo oo si rafaad ah ugu gaarto mise uu meesha ku naf baxaa laga yaabaa qalad yar oo qofkii caafimaadku ku soo jeediyay aad ka hor imaadeen waxyaabaha oo hadhow complications ka dhalanaya qofka markuu cudurku ku dhaco waxa kamid ah saan sheegnay cirrhosis-kaas liver failure iyo cancer-kaas oo ka dhalanayo oo qofka beerka kaga dhacayo hooyada haddaan u soo laabano uur kale waxa mar walba oo qasab ah hooyada intaan la dhalin ka hor in maxay ahaday oo xaaladeeda lala socdo waxyaabaha bulshadeena loo baahan yahay inay ku baraarugaan waxa kamid ah hooyada uur kale inay mar walba tagto xarunta caafimaadka waxa loo yaqaano FFAC oo full term oo maxay foxed antenatal care loo sameeyo hooyada tusaale ahaan 16 isbuuc oo kale wixii ka hooseeya mar inay tagto 16 isbuuc ilaa 28 isbuuc inay xarunta caafimaad mar booqato 28 isbuuc ilaa 32 isbuuc ama 30 isbuuc mar inay tagto 30 isbuuc ilaa iyo maxay ahaday ay ka dhaleysana mar inay booqato taas faa'iidada ay leedahay maxay tahay hepatitis kaliya la ogaanayo ma aha faa'iidada leedahay waxa waaye hooyada in loo sameeyo maxay ahaday waa gelin caafimaad in loo sameeyo oo ay kamid tahay malaariyada hadii oo kale hooyada meelaha qaar waxa lagu bixiyaa shangarowda lagu bixiyaa oo la siiyo markaneecadi ayadii cunugeeda maxay ahaday oo dhibaatada ka ilaalinayo waxyaabaha ay faa'iidada ay leedahay inay hooyada xarunta caafimaad ku noqoto waxa kamid ah in la ogaado ayadana ay ogaato nooca ay u dhali lahayd hadii ay qalin tahay
iyo haddii ay maxay ahayd ay normal oo delivery caadi ay u dhali lahayd in la ogaado laftigeeda in la ogaado cunugeeda nooca uu yaalo in la ogaado biyaha cunuga uu ka kooban yahay in la ogaado maxay ahayd cunuga developmentalkiisa congenital miya in la ogaado waxyaabahaas ay faa'iido leedahay marka waxa arkaysaa hooyada ilaa 9 bilood inaysan xarunta caafimaadka soo booqan waana waxyaabaha nasiib darada ay ku dhaco ama hooyadii wax yar oo wax laga qaban karo ay u guuriyoto hooyada xilliga uurka ee leedahay waxyaabaha loo baahan yahay waxa kamid ah ilaa muddo 3 bilood ah inay qaadato qaliiniya loo yaqaano iron inay qaadato la rabaa ilaa muddo 3 bilood waxa laga rabaa oo kale micronutrient inay qaadato oo cunuga nafci u leh ayadana nafci u leh laakiin hooyooyinka waxa dareemaysaa in qofkii markaasi wixii u daran oo loo yaqaano morning sickness ka kaliya oo labalabadii heesa kaliya ay u doonanayso farmashi la wixii ka dambeeyay ay iska tuurayso qofkii ugu roono laga yaabo quraacdi beerkii wixii kaliya inuu sameeyo marka taas waa nasiib daro waxa loo baahan xarunta caafimaadka inuu booqdo ugu yaraan 5 jeer inta uurka uu hayo intaasaan baraarujinayna insha Allah ugu dambeyntii sidee looga hortagi karaa cudurkii aynu ka hadlaynay hepatitis-ka hepatitis-ka waxa looga hortagi karaa in ugu horeyn qofka uu qaato hepatitis B-ga vaccine-kiisa diyaar ah hadda uu qaato inuu qaato waxa la dhahaa US ama America waxa la dhahaa ciyaalka ka yar 19 ka dhan inay qaataan vaccine inay qaataan lagu taliyaa anaga kulay waxaan ku talinaynaa sidaas lamid ah in qofkii uu qaato talaalka loo yaqaano vaccine-ka oo hepatitis-ka qaasatan dadka meelaha caafimaadka ka shaqeeya maadaama halis ay ku jiraan oo ku saabsan vaccine-ka ku saabsan waxa kale oo loo baahan yahay maadaama aan dhahnay galmo lagu kala qaadaa in mar walba qofka oo partnerka oo la sameynayo galmada uu sameeyo wax loo yaqaan screening uu ku sameeyo oo waxa jiro qofka intuusan la guursanin ka hor waxa jirto wax loo sameeyo oo loo yaqaan evaluation analysis oo qofka lagu sameeyo jirto labada dhinac way fiican tahay in la is ogaado intaysan dadka is guursan ka hor inay goob caafimaad yimaadaan muhiimadda horta waxay tahay la isku guursanayo waa in ilmo la dhalaa in la ogaado gabadha inay family infertility history leedahay ama causes kale ay leedahay number 2 waa in la ogaado qofka cudurro halis oo la isku gudbinayo inay leedahay inuu labada dhinac ay leeyihiin in la ogaado hepatitis-ka oo kamid yahay iyo waxa jirto kale adduunyada horumartay waxa la ogaanayaa dadka jiinkooda la ogaadaa waxa loo yaqaan in hadhow ciyaalka ay dhali doonaan xataa sidii u ekaan doonaan dad qaar waxa jirto aniga mucjiso aan iska dhahnaa laakiin mucjiso ma ahan waxa waaye samaysanka ciyaalka mar walba wuxuu ku yimaada hooyadii aabaha hadii ay dhacdo waxyaabo qaladaad ah waxa dhacayso in cunugii sida normalka ma si ka duwan uu u sameysmo waxa kale oo muhiim ah mar walba qofka waxaan dhahnay xataa dheecaanka ka soo baxayo ninka raga waxay ahaday xabintiisa taranka ama qofka dumarka xabintiisa taranka dheecaanka ka soo baxaya xataa qofka meel qalan hadii ay ka gaarto wuxuu qaadaya hepatitis ku qaadaya waxa loo baahan yahay xoolaha horta waxa kamid ah in mar walba qofka meesha uu boogta ay ka tahay uu daboolo waxa kale oo muhiim ah in aan la wadaagin ama aan la share gareyn waxa loo yaqaano sakiinta sidoo kale in aan la share gareyn waxa loo yaqaano toothbrush-ka ama cadayga ama brush-ka lagu cadaysto in aan la wadaagin guraha oo jiyaha lagu gurto in aan la wadaagin maxay ahaday dhigaha oo laftigiisa way soo galaysaa laakiin inkastoo ay saas u badneen laakiin meelaha laga qaado kala waxa kamid ah geedka lagu daro dhigaha lagu daro oo laftigiisa laba nooc kala ah noocyadii hore wuxuu keenaa qofka inuu halis u galo waxa kale oo aan la wadaagi karin xanjada laftigeeda la calaanjiyo lama wadaagi karo waxa kale oo qalad ah oo reeban ciyaalka cuntada loo calaanjiyo laftigeeda lama ogolo waxyaabaha oo waxay kamid tahay hepatitis kaliya ma ahane cudur kale oo tiro badan gudbi karo waxaan halkaas ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka taxanaha caafimaadka ee Koonfur Galbeed waxa inoo madal ah mowduucyo kale oo xasaasi ah oo mowduucyada kan soo doono magacayga waa Dr. Cabdullaahi Cabdiqaadir Cali والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.